wafdi uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Yuusuf Axmed Xagar Dabageed oo isugu jiray xildhibaan iyo wasiiro waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne ku soo dhaweeyay maamulka gobolka Hiiraan kan degmada Beledweyne saraakiisha ciidamada xoogga odayaal dhaqameed haween ururada bulshada rayidka iyo qaybaha kale ee bulshada soo dhaweynta madaxweynaha kadib waxaa loo soo galbiyay qasriga madaxtooyada gobolka ugu horeyn munaasabad kooban oo soo dhaweynta wafdiga madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle ee lagu qabtay aqalka madaxtooyada waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo maamulka gobolka Hiiraan madaxweyne soo dhawow ku soo dhawow dadkaada iyo dalkaada ku soo dhawow insha Allah hawlihii shaqood ku maqneed insha Allah ilaahay ku soo aruuri aad baan ugu faraxsanahay soo dhawow madaxweyne waan ku soo dhaweynaa insha Allah dhammaan dadka halkan isku yimid oo shacabkaadii waxay kugu yimaadeen inay ku soo dhaweeyaan waxay kaaga hortageen garoonka halkana way kugu soo dhaweeyeen markaanu kaaga warbixino magaalada xaaladeedu waa amni wax qalqal oo weyn oo ka jira ma jiro dhammaan shacabka magaalada Beledweyne waxay u heelayeen ay sugayaan riboodkaadii maadaama aad ahayd madaxweynihii oo noogu maqan shaqo waxa kale arrimo waxa noola timaad oo noo sheegto ka ambaqaad waa maahane waxa noo wada anagu helnam hadda kama hadli kara laakiin waxaad ogaanaysaa maalintii hortoo timid iyo maalintii ku xigtay iyo saake waji cusub marqaati ma doonto waa afka in xukumin laakiin si weynta ka garo midda kale hal isku sabro dulqaad hal yeesho qayrka in aan ka daba tagno umadu meeshii mari hal maro mudan madaxweyne waxaan leeyahay soo dhawow magaaladaadii xaruntii gobolka Hiiraan Hirshabelle ku soo dhawow waxaan idinka mahad celinaynaa soo dhaweynta qiimaha leh ee aad u samayseen wafdigu hor socday madaxweyne ku-xigeenka waxaan ku faraxsanahay inaad qaybi bulshada dhan ay matalaan ay halkan joogaan wixii war ahaa oo wafdiga uu waday madaxweynahan u dayn doonaa laakiin annaga garbiisaan ahayn shirarkii uu xamar ka soo qayb galay iyo hawshu idinku maqnaa qaybaan ka ahayn asaa hormuudna u ah reer Hirshabelle dawladda aad haysataan waxa la rabaa dhibaatada jirto dhan wax looga bixi karaa dawlad la'aan laga bixi karo haddaan u soo dego safarkeenna ujeedkiisu waa u gogol xaar doorashadu inay ka dhacdo magaalada Beledweyne waxaana soo daba joog hadii ilaahay iraado dad fara badan oo ama xilal raadina oo xildhibaan rabo ama xilal ku fadhiyay ama musharaxiina ama dadweyne ah waxaan rajaynaynaa in magaaladan isugu timaado dad aan ka yarayn ilaa 10,000 oo qofood oo ay magaalada Beledweyne martigeliso doorashadii ka dhacdo si xasiloon uga dhacdo lagu tartamo iyadoo xaq iyo free and fair ah taasaan hor u dhacunahay safarkeenu ku saabsan yahay madaxweyne ku-xigeenku nagu hogaaminayay safarkeenu intaas ayuu quseeyaa mudane madaxweyne haddii aan warbixin kooban ku siiyo xaaladda maanta Hiiraan ka jirta xaalad aad u adag oo aan filayo haddaan ilaahay uru bixin dawlad ka jawaabtana aan la helin xaalad bini'aadanimo ayaa khatar loo yahay waxaan samaynay hay'adaha jooga gobolkan hadday yihiin kuwa internationalka iyo hadday yihiin kuwa localka inta xafiiskana ku kulmin iyo maamulka waxaanu go'aansanay in degmo kasta inta laga tigi karo in la tago meesha ugu badan 3 meelood meesha ugu yar degmada ugu yarna 2 meelood ugu dambeyn waxaa munaasabada soo afmaray madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Mudane Yuusuf Axmed Xagar Dabageed isagoo faahfaahiyay ujeedka safarkiisa waxa uu ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka inay ka qayb qaataan caawinta dadka abaaraha ay saameeyeen isla markaana waxa uu sheegay in isaga iyo madaxweynaha Hirshabelle Ali Guulaawe Xuseen ay deegaanada gobolka Hiiraan ay abaaruhu saameeyeen u qorsheeyeen 100 booydood oo biyo ah oo ay maalmaha soo aadan la gaarsiin doono deegaanada abaaraha darne ay ka jiraan ilaahay waxaan ka toogaynaa marka hore abaarta aad sheegteen oo gudoomiyaha gobolka soo u sheegay ilaahay waxa laga toogaa ilaahu col iyo abaar aan ka magan galnay haddana ilaahay aan ka toogaynaa in ilaahay colkii abaarta laga dijiyo oo ilaahay roob qayr qaba iyo oo arama oo nabad ah oo dadkii dunyada u roon oo aafo wadan ilaahay loo keenay ilaahay aan ka tuugayna
dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan abaartaas waa ka jirta ilaahay waxaan ka tuugaynaa dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan in ilaahay u naxariistaan ka tuugayna dib u heshiisiina loo baahan yahay waxa loo abaara jirta xooluhu wacyi ku sugan yihiin aan ognahay dadka inuu miyo u badan yahay miyiga daruufa ka jirana waa ognahay ilaahay waxaan ka tuugaynaa horta ilaahay daruufayn hadda boolo waxaan codsanaa ilaahay dadka mugay isku naxariistaan oo u naxariistaahe annagu horta koow aan isku naxariisanno annagu koow aan iscafinno annagu koow aan israboonno dhinacan isla aadno annaga waxaan xagga u joognay waxay ahaayeen danaha doorashada ugu badnaay waxaan codsanaa oo ku celcelina amnigeeda waa laga shaqaynaa shacabka waxaan ka codsanaa inuu la shaqeeyo ciidamada amniga inuu la shaqeeyaan shacabka ka codsana oo meesha cidii ilaahay wax u alfaahili doonta kursi walbana oo qabiilka iska lahaa ku tartami doona ibraahim xasan beledweyne